Puntland ayaa gacan gubeed ku martigelisay dadkii laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood. Hooyooyin, carruur dhabta lagu sido, ciroole iyo rag ganacsato ah ayay isugu jireen dadkii waaradada laga soo buuxiyay ee xalay u hayday magaalada Burtinle ee gobolka Nugaal. Deegaanka Dusmada iyo Gaalkacyo ayaa looga mayray takoorkii Laascaanood, halkaasoo qado iyo quraac loogu sameeyay, maantana ay nasiino u joogaan. Soomaalidu waxay caado iyo dhaqan u leedahay inaan legdanka siyaasiga ahi uusan saameyn ku yeelan maxasta iyo maatada, balse Somaliland ayaa ku kacday ciqaab wadareed lagu beegsaday reer Koonfur Galbeed. Fikirkani kama soo maaxan maanka reer Laascaanood, waxaase alifay madaxweyne Muuse Biixi. Wuxuu dhaawacayaa taariikhdii gobonimada lahayd ee daraawiishta lagu yaqiinay. Odayaasha dhaqanka Laascaanood ayaa ka soo horjeeda tarxiilka Somaliland, laakiin waxay u muuqdaan rag ashuun ku adamaya oo aan fikirkooda fagaaraha la iman karin. Somaliland waxay ku dhaqaaqday fal ka soo horjeeda ilbaxnimada, dhaqanka suuban iyo dimuqraadiyadda ay ku faanto, kaasoo lagu beegsaday dad rayid ah oo aan fal dambiyeedyo lagu soo qaban, laakiin beel ahaan loo faquuqay. Dadka Somaliland si weyn ayay ugu kala qaybsameen tarxiilka lagu sameeyay muwaadiniin si nabada ku jooga dalkooda. Qaarkood waxay la safteen xukuumadda Muuse Biixi oo ku doodaysa inay reer koonfureedku caqabad ku yihiin amnigooda, balse siyaasiyiinta reer waqooyiga ku metela dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aanka lagu soo masaafuriyay dadka reer Koonfur Galbeed ee baayac mushtarka ku ahaa Laascaanood. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abukur Dube oo Somaliland ku metela aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa diidmo qayaxan kaga hortagay habdhaqanka Somaliland. Waxa uu sheegay inuu ka xun yahay falka lagu masaafuriyay dad birimugeydo ah. Wasiirka dastuurka Soomaaliya Senator Saalax Jaamac ayaa isna ka mid ah reer waqooyiga ka xumaaday faquuqii ka dhacay Laascaanood. Waxa uu sheegay inuu cambaaraynayo aragtida ku dhisan ciqaab wadareedka ee Somaliland. Wuxuu kaloo sheegay in masaafurinta muwaadiniinta rayidka ahi ay ka soo horjeedo diinta Islaamka, dhaqanka Soomaaliyeed iyo heshiisyada xuquuqul aadanaha caalamka. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed waxa uu sheegay in tarxiilka Laascaanood uu ka hor imanayo ilbaxnimada iyo dhaqanka suuban, kaasoo sii kala dilaya dadka Soomaaliyeed oo ka soo kabanaya dekanooyinkii dagaalada sokeeye. Madarisatul Macallimul Qur'aan, meel kastoodba adduunka aad ka joogto dushiisa minankaaga dhexdiisa, adoon meelna u dhaafin online maado ku qaado baro maanta duruusta. Mabda'eena Islaamka Qur'aanka ka meerso axaadiista ka miiso, siiradii nabigeena sallallahu calayhi wasallam siyar maanka ku kaydso. Madarisatul Macallimul Qur'aan waa malcamad online ama huraan aan la dhaafin midka aan ka warhayni, malaa waa maqfuul ee maanka ha u furo haatan. meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogto si online ugu biir mareegta xifdinta Qur'aanka Kariimka. Madarisatul Macallimul Qur'aan oo kala xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda. Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Ilyas Cali Nuur ayaa dhankiisa cambaariyay falkan Somaliland ay kula kacday dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ganacsiyada ku lahaa Laascaanood. Wuxuuna Somaliland ugu baaqay inay joojiyaan ficilada Soomaali nacaybka ku dhisan. Ganacsatada Koonfur Galbeed ayaa qufulka u dheereeyay goobaha ganacsiga ee magaalada Boosaaso. Waxay qabsadeen isu soo bax dadweyne oo looga soo horjeedo raafkii ka dhacay Laascaanood. Taasi waxay keentay inuu yiraahdo dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee xarunta dhaqaalaha Puntland. Xildhibaan Dhaashane oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa nasiib darro ku tilmaamay dadka Soomaaliyeed ee laga soo masaafuriyay Laascaanood. Wuxuu ku tilmaamay inay tahay fal guracan oo ay geysteen rag aan u dhalan Laascaanood balse si dhalanteeda u jooga. Shacabka Puntland ayaa dadkii la soo tarxiilay si dareen leh ugu soo dhaweeyay laamiga xiriiriya Garowe ilaa Gaalkacyo. Waxay muujinaysaa kala fikir duwanaanta iyo bisaylka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland. Dadka reer Koonfur Galbeed ee laga soo masaafuriyay gobolka Sool waxay geedigooda ku furan doonaan inta u dhaxaysa Tiyaglow, Rabdhuure iyo Waajid oo Bakola, halka qaar kalena dib u dejin loogu samayn doono degmooyinka Sablaale, Kuntuwaarey, Walaweyn ilaa iyo Leego oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Gobolkan oo dadkiisa colaaduhu u kala qaxiyeen bari iyo galbeed waa kan ugu soo wax soo saarka badan Soomaaliya. Waxa ku yaala dhul beereed ay qodatada beeruhu ka waraabsadaan webiga Shabeelle. Dalagyada ka soo go'a waxa si weyn ugu tiirsan gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee Soomaaliya.